aad iyo aad u soo dhawaada si kale iyo laabaan idin soo dhaweynaa tiimka kale la soo sidoo kale waxaan diyaarnaa dekadii oo diyaara Freesonkii oo diyaara Berbero diyaara Somaliland oo diyaara gacmo furan ku soo dhawaada oo soo dhaweynaa waftigan uu hogaaminayo xokiyaha guud ee rugta ganacsiga ee dawladda federaalka Itoobiya sidoo kalena ay weheliyaan wasiirka wasaaradda maalgashiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo ganacsiga ee dawladda deegaanka sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen madaxweynaha rugta ganacsiga ee Oromiya madaxweynaha rugta ganacsiga ee Tigreega iyo sidoo kale madaxweynaha rugta ganacsiga ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo ku-xigeenkiisa iyo xubno sare oo iyaguna ka socday maamulada heer deegaan iyo heer federaal ee dawladda Itoobiya oo maalintii shalay ha soo gaaray Somaliland ayaa maanta socdaal ku yimi magaalada Berbera waftigan ayaa ujeedada socdaalkoodu ahay sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka ganacsiga ee ka dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya iyo waliba sidii ay u booqan lahaayeen dekada ugu weyn ee ay wax uga soo degaan Somaliland iyo Itoobiyaba ee Berbera waftigan oo magaalada Hargeysa ka soo hogaamiyay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee Somaliland Maxamed Xasan iyo sidoo kale xubno sare oo ka tirsan wasaaraddaasi ayaa markii ay soo gaareen magaalada Berbera waxay kormeerkooda ay ka bilaabeen aga cashuuraha ka caagan ee loo yaqaan Freesonka iyadoo ay halkaasina ku soo dhaweeyeen madax sare oo ka socotay shirkadda DP World iyo howlwadeenadeeda way ugu horeeyeen madaxa howlsocodsiinta geeska Afrika ee shirkadda DP World Mr. Barshad iyo sidoo kale madaxa ganacsiga ee shirkadda DP World ee geeska Afrika Jaamac Maxamed Ahmed waxaana ay warbixin ka siiyeen habka uu shaqeeyo aga cashuuraha ka caagan ee Freesonka loo yaqaano iyo qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay adeega uu qabto iyo waliba habka uu ugu adeego ganacsatada kala duwan ee wax kala soo dega dekada magaalada Berbera iyo dawladaha kala duwan ee ay Itoobiya ka mid tahay waxay warbixin ka siiyeen sida uu u adeego Freesonku iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan ee waqtigan ku shaqeeya intaasi kadibna waxay kormeerayeen dendeen ku sameeyeen qaybaha kala duwan ee Freesonka ee magaalada Berbera intaasi kadib waftigu waxay booqdeen dekada magaalada Berbera oo ah dekada ugu weyn ee ay wax uga soo degaan Somaliland iyagoo dendeen ku sameeyay qaybaha ay dekadu ka kooban tahay gaar ahaan aaga konteenarada la dhigay iyo sidoo kale goobaha kala duwan ee ganacsigu ka socdo ee gudaha dekada magaalada Berbera warbixin kala duwan ay ka siiyeen madaxda shirkadda DP World iyo maamulka dekada magaalada Berbera habka ay u shaqeyso dekada Berbera ee ay booqdeen waxaana ay si weyn u soo dhaweeyeen waftigan ka socota dawladda Itoobiya gaar ahaan waftigan ka socda heer federaal iyo heer deegaan waxaana ay sheegeen in dekada Berbera ay ka mid tahay degadaha ugu muhiimsan ee ku yaala geeska Afrika ee u adeega wadamo kala duwan oo ay ku jirto Itoobiya waxaana ay sheegeen in ay dekada magaalada Berbera ay tahay dekad ku filan sidii adeeg ugu qaban lahayd ganacsatada kala duwan iyo waliba dawladaha jaarka ee ay ugu horeyso dawladdan Itoobiya maariyaha hay'adda dekadaha Somaliland iyo sidoo kale xubno kale oo iyaguna ka mid ah maamulka shirkadda DP World ayaa soo dhaweeyay socdaalka waftigan oo ay ku tilmaameen in ay yihiin waftigii ugu ballaarnaa ee socdaal ku yimaada dekada magaalada Berbera iyagoo kurgalaya howlaha ay dekadu qabato siday u adeegto iyo waliba badacadaha kala duwan iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee ka dhex socda muddo 2 maalmood ay waftigan ku sugnaan doonaan magaalada Berbera oo ay kormeer ku sameyn doonaan goobaha kala duwan ee dhinaca maalgashiga ee shirkadaha waaweyn ay ka sameeyeen iyo sidoo kale hamaha kaydka shidaalka warshadaha kala duwan ee laga hirgelinayo magaalada Berbera ay ka mid yihiin warshadaha saliidda sibirka daqiiqda warshadaha waaweyn ee maalgashi ee ka hirgalay magaalada Berbera Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera